Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkii Ogaalka Dunida oo aad ka daawataan channelka Wanaag Media. Daawadayaal, maanta barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa wiil iyo gabar saaxiibo ah oo dhimashadooda si toos ah ugu baahiyay adduunka. Gabar yar oo quruxley ayaa waxay adduunka si toos ah ama live ugu baahisay dhimashada iyada iyo saaxiibkeed. Gabadha dhalinyarada ah iyo wiil lagu sheegay inuu yahay saaxiibkeed ayaa waxay si xawli ah u wadeen gaari iyagoo cabsan. Wuxuu shilkani ka dhacay dalka Ukraine. Sofia Magarko oo ah gabadha baahisay muuqaalkan waa 16 sano jir, waxaana gaariga ku waday saaxiibkeed Dasha Medvedeva oo 24 sano jir ah. Weliba si xawli ayuu gaarigooda u socday, inkastoo xaqiiqdu tahay inay labaduba cabsanaayeen. Balse nasiib darro, gaarigooda oo ahaa nooca loo yaqaano BMW ayaa wuxuu ku dhacay birta xooggan ee iftiinka jidka lagu xiro lamppost. Sofia dhowaan ayaa loo doortay gabadha ugu qurxoon magaaladeeda Izum, balse shilkan ayay ku dhimatay iyadoo muuqaalka adduunka oo idil uu ka daawanayay mareegaheeda Instagram. Daawade, mar walba ood gaari wada waxaad ku dadaashaa in aad iska ilaaliso waxyaalaha kaa mashquulinaya wadida gaarida, waayo waxaad mas'uuliyadda qaaday gaariga aad wada dadka saaran iyo dadka jidka marayaba.